dadkii dalka u badnaa dowladdii afweyne ee nacabka ahaa riday ficil isficiltamayaan ayuu ka soo dhexbaxbay ninkan yar la yidhaaho farmaajo fiila soomaaliya waxaa fadhiya waxa weeye farmaajo cawad jamaalka reer dhahareed iyo cabdicasiis cabdisiciid ninka la yidhaho afartaa inan baa fadhiya waxay ku tashadeen inay soomaaliya ay dib ugu celiyaan kacaankii waa carruurtii kacaanka ee dhadhaab iyo laga qaaday xeryaha qaxoontiga ee kenya oo wax ku soo bartay halkaa oo ciil qaba waxay isticmaalayaan laba arrimood mid waa mida lacag ba isticmaalayaan ay waddamo shisheeye ka heliyaan midna waxay isticmaalayaan nabad suguddii waddamada dictatoriska iyo ciidamo shisheeya waa taasi keentay in baydhaba 15 qof ay ku dilaan qofkii doonayaan ay saaraan ninkii dadku doonaya xidhaan waata keentay inay maalin kasta xamar ay dadka ku laayaan dadka bajaajka wada ku laayaan waata keentay inay guryaha ugu dhacaan dadkii xoreeyey soomaaliya ka xoreeyey siyaad bare waata keentay inay meydkooda xitaa cidlo ku aasaan waxay nimankaas ku hamiyaan waxay idhaahaan markaan ka soo adkaana dowlad goboleeda somalilan geli noogu qaadan mayso ku sheekeeya waa afartaa ina yaryar iyo inta cagaa ku qaataan haddaba maxaa waxaa siiyey dhiiridnimada dhiirid waxaa siiyey waxaa weeye maamul xumaanteena kala qaybsanaanteena cuqaasheena salaadiinteena qabyaalad ma wax kala hadlayna waxaan leenahay madaxweyne waxaan leenahay dadka hamidee madaxweyne waa inuu dadka mideeyaa daldilaacii ka soo qabtay ku dhacay doorashadii ka kabaa waxaan leenahay waa in doorasho u qabtaa doorasho waa inu qabtaa dowladaha hoose iyo wakiilada qabtaa dalkan waxa weeye waxaad moodaa imankaa inuu istaagay aanu shaqaynayn taas waxay keentay frustration dhalinyarteennii calankii faqashta ay howadaan qaarkood ay xamar tagaan qaarkood u heesaan niyad jab baa ku dhacay dadka waa in dadka niyaddooda lasoo hagaajiya waddan laguma wadi karo micro management ninka waa single minded masax keliya iyo qof kale ma wadi karo waxaa intaa ka daran reer yar halkan degan oo maxamuud saleebana ayaa isna inoo hanjabiyey halkan eegna ku sheegay maxamuud saleebaan waa cabdi ciise ka badan cabdi ciise maamul bay samaysteen ya dowlad bay iska dhigeen ya puntland bay la baxeen innaga abadee sooliya sanaag baan xoreynayna sooliya sanaag horta ma yaqaanaan sudaanka ay warsageen waxaan leeyahay war wala maxamuud saleebaan aan wax ka aqdhicinaynin dhulkaaga dagaal ka gelin yaanu noqon sanaagta bari dhul lagu reegdimo yaanu noqon waa xaaraan bay ka tahay in xadka Soomaaliya bedelaan oo maxamuud saleebaan ay bedelaan super power iska sheegaan haddaa durbaanka qabiilka la joojin waayo waxaan sheegay maxamuud saleebaan dagaalka ay koonfurteeda cid degan wad garanayso waa niman irira haddaan walaal siidhiga ugu dhufto maanta siidhiga haddaan ugu dhufto in sandwich ka dhigi doono xamarku way joogo saasaan u sheegay xamar waa magaaladeedii haddaan maanta tago walaala joogin marka aad anaga xamar magaaladeeda naga dumin karo maxamed siyaas baa naga dumin kari waaye ya afartiyada ciyaalkii kureedii Soomaaliya wax ma yeeli karaan waxaan leenahay Soomaaliya ha toosto madaxweynaha waan soo dhaweynaa waxaan leenahay anaga iyo wadani aan soo dhaweyno aan tusno inaanu anagu qaranka Soomaaliya ka soo horjeedin mucaaradana maamul xumada ka soo horjeedin nidaam darada ka soo horjeedin sharci darada ka soo horjeedin saami qaybs la'aanta aan dadku u sineen magaalada awoodda dalka aan ka soo horjeedin oo leenahay cadaalad reform buu dalkan u baahan marka waxaan ugu baaqayaa xuska kala mucaaradka ee wadani inuu British soo dhaweeyay madaxweynaheena tusna cadowga kaftankeena iyo loolankeena ay moodeen inaynu isku soo gurmanin intaan isku soo gurmano ayaa uu leeyahay bilaa anagu dabar la cunaa leena shaf la cuno male wiliga yal naga maadkan never in history ala wiliga leena jibin laana wiliga dulmi kuma aanu dulma sameeyno waan istaafacnaa xaqan ku dagaalama marka ciyaalka aan taariikhdaba garanayn الله
waxaan ku leeyahay waxaad ku jirtaa ood u magan tahay walaalo yar u tagtay dalkan maxamed siyaad bare wadariidnay USC ayaad u magan tahay waa kuwa aad kaga jirto taangiga ka raacday marka dhaxaysa ee suuqa tagi karin birq dacawad yaani kullu goynay iyo jamaariyada waxaan ku leenahay waa soo jeednaa waa wake up call shayto waxay ku dhaceen waa web call waxaan tusiyaa halkii maanta la inoo dalacsaday kale nagu qaadan maysa yiraan Soomaaliland kale baqbaqteen awdal baan la hadli doonaa laascaanood baan la hadli doonaa baran baan la maxay anaga doonayna qaqeymay inta yar haddaba iyaga ku jira oo magan u ah 22,000 oo ciidamo shisheey ah ay magan u yihiin anagu magan u manhay anaga dalkay joogna marka walaal waxaan leeyahay dadka saxaafadda waqtigan oo kale waa isgarab taaga dawladda we have to rally behind the president and the government waan daba galnaa maanta waxay la taytaan maanta oo kale 9/11 ma tahay 9/11 ku dhacay magaalada Mareykan ayay maanta ciyaalkan meesha fadhiistay waxay sameeyeen ayay la mid tahay waanu taadeenna ragga magaalada reer USC reer Banaadir iyagu iska fogeeyay ciyaalkan waxay ku hadleen xasad ku xideen waan ku soo dhaweynaynaa kuwa kan waxaan ku dayda oo muujiya inaynu ehelnahay oo muushale naga burburi karin tusa yalla wasalaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh isbira macaarif wadani qabto dawlad shaqaysa qabto oo tayo leh qabto dawladan iyo dawladiisa iyo shacbiga kala go'ayn maanta waxa la inagu arko waxa weeye dawlad aan shaqaynayn oo istagnata madaxweyne kaliya ma shaqayn karo waxaan leenahay doorashada la qabto reshuffle ha sameeyo dawlad tayo leh oo maanta waxaan haysanaa opportunity fiican baynu haysanaa intaasoo wadamo la xidhiino diyaar inoo ah hadda insha Allah taala laakiin haddaan gudaheenu hagaagsaneen de waxba iskama celin karno siyaasadda dibadda waa reflection oo gudaha dadka niyadooda la soo celiyo garbaan qabsano doorasho inoo dhacdo dad tayo leh ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabi yuusuf markii loo dhiibay xilka wuxuu yiri waxaan ahay xaafid amiin baan ahay dad xaafid amiin ah sameeyna oo karti leh oo amaanad ilaanaya dibjiriintan meesha fadhida sida Cabdiraxmaan Dheer oo kale doonay fadhiishan 10 sano waa in ka tuurna dusha dad tayo leh keena oo amaanada ilaalinaya dawladda hoose maanta dawladda hoose ma haysana bala sharci weey magaalada waa gudaafad kaliya ku xanuunaya baawurta iska dayna isbeer baardo inaga isbeer baar u baahanna god miido ma noqdeen saasi lacag soo cunaya si deertay kuwaas waan ka tuurnay insha Allah taala marka la eriyana wala la galiyaa audit inta dhul qaateen waxay marayaan imaka xaqan salaxlay toon bay u dhow yihiin si dhulka u iibsanayeen we have to cut them Soomaaliya Kenya tarsan war waxaa lama hadlo war ma tarsan ma haysta waxaan la haysto lahaas hada qiimeynaya markaad safarka ay ka soo noqotay waxaad sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu diyaar u yahay wada hadal maxaad maanta ku keentay Soomaaliya maxaa ka dambeeyay behaviorkooda ka dambeeyay behaviorkiisi in ay yaro qabiili u noqday atiisi qabo maskax waxa ka qabo noqday ma xukumi karaan waa haraagi maxamed siyaad barawey never again mudane gudoomiye magacaygu Cabdiraxiin Axmed Maadi telefishin bulshada ka socda dhawaan magaalada Hargeysa waxa ka qabsoomay shir ay yeesheen salaadiinta deegaanka bariga Sanaag iyo Soob oo cali khalif qayb ka yahay siyaasiyiinta arrintaas shirkaas sidoo warkiisay soo tahameen maanta kadib saar qadad u sameeyay tamad arag Soomaaliland baa la mideynaya tabashadooda la dhageysanaya wax bari galbeed iyo galbeed Soomaaliland waa mid waa family way shaqeeyeen wata maanta wada qadayna si cadam iyo gid wada qadayni ya waxaan taageersan soo dadkeeni ma ayaga adeegada isigu shiireeyaan waxaan dhaqan habar dhul baahantay waxaan dhaqan warsigeeliye haday one item iska dhigeen waa fiicantay laakiin waa dadkeeni xildhibaan Cabdiraxmaan Dheer wuxuu ku eedeeyay Soomaaliya horumarkeedu doonayo dhinaca kalena uu ka hor istaagi doono community international war ma xasan wasiir war in ka war reed naga tag idiga waxa ka dhigay macawad baa wasiir khaarijiya xaqu xukuma war qorshe ma wada hadal damo jira ma jiro wada hadal damo jiro waxaan ku ilmo kale weyn qaldanay waxa nagu qasbay mara Ingiriiska oo nimankii waxa jiray US marka dalka haystay laakiin markii hore waxay hadeen dawladaha laba jeerba waynu ka adkaanay dawlad aan hadalna ma jirto in adduunka la xidhiidhnaa oo aynu adduunka wadan oo macdanteena istiraatiijiyadeena aynu iibinahay dimuqraadiyadeena inaga isku meeraysanay
oo iibin kari weyn oo isku sinay inuu cawad iyo waxaan qayr keenayn jamaal inala soo hadlaan marka waxa weeye kaasi wasiir maaha waa inay yaroo beenbeen ku nool inay reer garoowa waxayna yar garoowa xagu meel qormo xukume ina maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay ma hadla subhanahu wa ta'ala ilaahay ba kaligii ma hadla subhanahu wa ta'ala waxaan maanta idinku yeeray laba qodob baan doonaya maanta ka hadlo mid waxa weeye safarka madaxweynaha iyo raashinka ka keenay magaalada Saaye ciyaalkan madaxtooyada fadhiistay xamar mid waxa weeye shacabka reer Soomaaliland oo iyagana aan fariin u diriyo marka hore waxaan aad iyo aad u hambalyeeyay horta wadanka Guinea iyo madaxdooda sida cisiga leh ee sharafta leh ee wafdigeeni madaxweynuhu hogaamiyay soo dhaweeyeen waxaan u aragnaa talaabada maanta aynu qaadnay tan iyo tii ka horeysay aan ku tagnay Kenya ya qaar badan soo socda insha Allah ta'ala ay noqon doonto qaar horseeda siin u helayeen xuquuqdeeni waxaan sheegnaa dadka reer Soomaaliland horta marka ugu horeysa Soomaaliya dawlad kama jirto qalad weyn baheed inaynu nidaaha Soomaaliya la hadlinaa dawlad aan jirin in la hadlo maaha laga bilaabo waxaan jecelahay madaxweynuhu ku soo noqdo in qaraar la soo saaraa dawlad soo saartaa la yiraahdo wax wada hadala oo Soomaaliya la yeelana maadaama aanay jirin dawlad Soomaaliyeed oo dadka ka wakiila oo nala siman oo dadku soo doorteen oo cashuur qaadata oo xuduudiyeeda ilaalisa oo badeeda ilaalisa aanay jirin la fariisanayno Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dalbe ahaayeen mid waa jira kii kale ma jiro ka kale markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u yimaado oo waliba gacan ka geysanayno ayaan wada hadli doonaa wada hadalka Soomaaliland ay la leedahay kolba kooxda timaada xamar waxay nagu noqotay dhibaato marka wadamada u tagno aan ilaahay waxaan jecelahay inaanu dal jiri jiraan nahay 60kii iyuu ka baxay in i'tiraafnaan baan rabnaa waxay ilaahan dawladda idin wada socon Soomaaliya de ka hor dhicmayno bilow heshiisaane marka dhibaato bay noo keentay waxa adduunka dawladaha i'tiraafa dawlad i'tiraafta member states ayaa i'tiraafa failed state dawlad aan jirin oo aynu dawladii aynu isleeyahay ka adkaanay ka bacay dawladii ma jirin marka waxaan leenahay wada hadalada hala joojiyo xiriirka hala joojiyo biidihina aleedin dawladda Soomaaliya ma jirto maanta ciyaalkan Koreeda ah dadkii dalka u badnaa dawladii afweyne nacabka ahaa riday ficil tamiyaan ayuu ka soo dhaxbay inankan yar la yiraahdo farmaajo fiila Soomaaliya waxa fadhiya wax weeye farmaajo عود جمالك دهارات يا عبد العزيز عبد السعيد نكايرا أفتاين ما فديها waxay ku tashadeen inay Soomaaliya dib ugu celiyaan kacaanki waa caruurtii kacaanka ee dhadhaabiyo laga qaaday xiriyaha qaxoontiga ee Kenya oo wax ku soo bartay halka oo ciil qaba waxay isticmaalayaan laba arrimood mid waa mid lacag ba isticmaalayaan wadamo shisheeye ka heliyaan mid waxay isticmaalayaan nabad sugidii wadamada dictatorska iyo ciidamo shisheeye waa taasi keentay in baydhaba 15 qof ku dilaan qofkii doonaya ay saaraan ninkii dadku doonaya xiraan wata keentay in maalin kasta xamar ay dadka ku laayaan dadka bajaajka wada ku laayaan wata keentay inay guriga ugu dhacaan dadkii xoreeyay Soomaaliya ka xoreysiyad bare wata keentay inay meedkooda xitaa cidla ku aasaan waxay markaas ku hamiyaan waxay yiraahdaan markaan ka soo adkaana dawlad goboleedada Soomaaliland gelin ugu qaadanayso ku sheekaya waa afartayna yar iyo inta caga ku qaataan hadaba waxa siiyay dhiiridnimada waxa siiyay waxa weeye maamul xumaanteena kala qaybsanaanteena uqaasheena salaadiinteena qabyaalad ma wax kala hadleen waxa leenahay
madaxweyne waxaan leenahay dadka hamidee madaxweyne waa inuu dadka mideeyaa daldilaacii ka soo qabtay ku dhacay doorashadii ka kabaa waxaan leenahay waa in doorasho u qabtaa doorasho waa inu qabtaa dowladaha hoose iyo wakiilada qabtaa dalkan waxa weeye waxaad moodaa imankaa inuu istaagay aanu shaqaynayn taas waxay keentay frustration dhalinyarteennii calankii faqashta ay howadaan qaarkood ay xamar tagaan qaarkood u heesaan niyad jab baa ku dhacay dadka waa in dadka niyadooda la soo hagaajiya waddan laguma wadi karo micro management ninka waa single minded masax keliya iyo qofkooda ma wadi karo waxaa intaa ka daran reer yaro halkan degan oo maxamuud saleebaana ayaa isna inoo hanjabiyey halkan eegna ku sheegay maxamuud saleebaan waa cabdi ciisaha ka badan cabdi ciisa maamul bay samaysteen ya dawlad bay iska dhigeen ya puntland bay la baxeen innaga abada sooliya sanaag baan xoreynayna sooliya sanaag horta ma yaqaanaan suldaanka ay warsageen waxaan leeyahay war walaa maxamuud saleebaan aan wax ka aqdhicinaynin dhulkaaga dagaal ha ka gelin yaanu noqon sanaagta bari dhul lagu reegdimo yaanu noqon waa xaaraan bay ka tahay in xadka soomaaliya la bedelaan oo maxamuud saleebaan ay bedelaan super power iska sheegaan haddaa durbaanka qabiilka la joojin waayo waxaan sheegay maxamuud saleebaanka dagaalka cayay koonfurteeda cid degan waad garanaysa waa niman irira haddaan walahi siidhiga ugu dhufto maanta siidhiga haddaan ugu dhufto in sandwich kaa dhigi doono xamar ku wajooma saasaan u sheegaya xamar waa